الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق التقوى. ثم ما بعد، walaalayaal khudbadeennani waxay raacsan tahay ama ku laran tahay ku lifaaqan tahay khudbadii hore jimcii hore oo aynu ka soo hadalay barakada iyo waxa la barakaysan karayo hadduu yahay waqti iyo hadduu yahay goob iyo hadduu yahay shayba. waxayna ka soo hadal markaa shakhsi la barakaysto, shakhsi bani aadamka ka mid ayaa la barakaysan karaa. waxaa la barakaysan karaa ambiyada ilaahay ee uu soo gebagabeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. marka la eego shakhsigaa xagga shakhsiyaddiisa iyo daatadiisa iyo jidhkiisa wixii la xidhiidha, nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam in la barakaysan karo dee daliilo badan baa ku soo arooray oo saxiixoo way sugan tahay. taasi waxaa ka mid a si kooban haddaynu u dul marno xadiidkii saxiixa ee caaisha tilmaamaysa markuu nebigu sii dhimanayay gacantiisa shariifka baan qur-aanka ku akhriyay, marka gacantiisaan jidhkiisa marinayay maadaama ay barakaysan tahay bay tiri. waxaa ka mid a xadiidkii saxiix ahaa ee xusayey nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac, xajkii u dambeeyey ummadda uu sagootiyey markii timaha laga xiiray rasuulka ee uu xalaaloobayey timihiisa si loo barakaysto ummaddu u qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ahaa xadiidkii sulxulxudaybiya ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtu markuu weysaysanayo iyo markuu candhuuf tufayo dhulka umay dhacaynina intay ka qabsadaan bay iswada marinayeen. waana tii gaaladii wafdiga ugu yimi quusisay ee indhahooda ay wax ku arkeen. waxaa ka mid ahaa ummu sulaym anas hooyadii oo nebigu soo booqday calayhi salaatu wasalaam, gurigeedu seexday, wuu dhididay nebigu. dhididkiisii bay aragtay shariifka ahaa oo ka daadanaya isagoo hurdo nebigu calayhi salaatu wasalaam. weel yar bay soo qaadatay oo sida marqacadiiyo wixii la midoo intay ku hoorisay ayay quraarad ku shubanaysay. nebigu intuu soo booday buu uhi maxaa dhacay? waxaa dhacay bay tihi dhididkaagaa udgoon baanu hoorinaynaa oo cadarkaanu ku daraynaa. waad asiibtay buu uhi, sidii wanaagsanayd baad asiibtay. waxaa ka mid ahaa gacmihiisuu dhex dhigi jiray biyaha nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo aada u soo burqanaya, waana la barakaysan jiray, waana lagu dahaaro qaadan jiray. waxyaabahaasoo dhan waxay tilmaamayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu barako lahaa jidhkiisa, dhididkiisa, candhuuftiisa, intaba isagii shaarica inoo ahaa sharciga inoo dejinaya baana inoo tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam. marka shayga la hubo inuu ka mid yahay baqaayaagii ama hadhaagii jidhkii nebiga ka mid a sida timihiisiiyo wixii la mid ahaa, haddii si dhaba loo hubo waa la barakaysan karaa haa. laakiin yaqiintaasi waxay raacday bay culimmadu leeyihin dee casrigii saxaabada ridwaanullaahi calayh oo isbeddel badan baa dhacay iyo dadkii alaabtiisa gacanta ku hayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam. amaa ciddii ka soo hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama asxaabta ha ahaadeen ama acyaanta iyo culimmada ama waalidka, cid kaleoo jidhkiisa la barakaysan karayaa ma jirto. oo waxaa jiray khulafadii afarta ahaa abubakar, cumar, cuhmaan, caliy oo ahaa asxaabta nebi moxamed kuwa ugu fadli badan. may dhicin jidhkooda in loo barakaysto sidii nebiga loo barakaysan jiray calayhi salaatu wasalaam. cid kale oo dee ka dambayso iyaga ka fadli badanina ma jirto ama jidhkooda loo barakaysanayo sidaa nebiga loo barakaysanaya calayhi salaatu wasalaam. waxaa dhacday culimmada markay arrintaa ka hadlayaan waxay leeyihin furuuq badan baa jirta oo aan looga qiyaasan karaynin, oo aan la odhan karaynin nebigaba jidhkiisii baa la barakaystee weli hebel ama sheekh hebel baa jidhkiisa isagana la barakaysanaya. ila way dhacda casrigan aynu joogno dad dhididkooda la isku duugo, qaarkood la yidhi waa weli oo kaadidiisa dadka qaarkood cabbeen. way dhacday. marka arrintaasi qalad daliilka laga fahmay iyo qallooc weeye. waxaan looga barakaysan karaynin oo aanay nebiga cid kale ula mid noqon karaynin arrimahan soo socda: cadamu lmuqaarada fadlan cala almusaawaati bayna arasuuli sala allahu calayhi wasalam wagayrihi min atbaaci. dee cid nebiga la barbar dhigi karoo la simani ma jirto oo fadligiisii lahayd. waxa labaad oo aan loogala mid dhigi karaynin
عدم تحقيق الصلاح لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم قلبك قفك ما أجين النجو وحقر صنوي ولا جاء بقلبك سنو نوع كلامي هاي قفك هدو حتى قلبك سهجاك سي هاي وحينان قرن كرين خاتمة دي سبوح إن قندون تقفك الأمور بالخواتيم الرماء وحلا جاء خاتمة ده يجب دي يمر كسير من يقفوا جريانه محو كل من ضانا ده عيد دليل نوش جاي ما عيد كلامه أجين واحد عيسى كلا ذلك قاركود مركز سدا سو كلا لوجا بدبديه الله بركيست waxay ka dhex siibtaan badiinta oo waxay ismoodaan waxaan ay ahayn wa'bud rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqiin rag qaarkood la barakaystaan markay fasirayaan aayada ilaahay caabud ilaa geerida ku imanaysa yaqiintu ku imanaysa yaqiintuna waa geerida ayaa waxay dhaan yaqiintaasi huwa raf'ul ibaada waa in ibaadada qofka laga kor qaado dadka ag jooga oo ay cibaadaystaan oo isagu aanu cibaadaysanin warin qalada nabi maxamed baa cibaadaysanay ilaa intuu sii dhimanay marka barakaysigaasi wuxuu keeni karaa qofkii laga badbadiyay inuu balaayo ku noqdo waxa kale shariicadu leedahay shay loo yaqaan saddul ad-daraa'i' al-mufdiyati ila al-bid'i wash-shirk wadooyinka hadiya jeer dadka lu goyn kara ka sameynaya ka lagu sameeyay wadooyinka waa la xiraa wax kasto xalaal hadii ay dhacdo in lagu fitnoobayo xaraam buu isu rogaa markaas arrimahaas oo dhami waxay kuwaan looga qiyaasan karay in nabiga kaleey salaatu wasalaam barakadiisa in cid la mid tahay barakada noocana dad badan baa ku loo ma xataa waa meesha shirkiga iyo gaalnimadu ay ka soo bilaabmeen sida xadiidka saxiixa ku sugan barakada qalooc dadka u gashaa ama shaydaanku ka faa'iideysta shirkiga ka soo bilaabmay suuratu nuux baa ilaahay waxa uu ku xusay sanamyadii ay caabudi jireen nimankii gaalada ahaa casrigii nabi nuux joogay waqaaluu laa tadarunna aalihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلهياشينا كتجينا بيدادن قارهان شنتا إله حجست مقعداله مركا إلهيدا سنميداس وحي هاين دد صالحين وناكسن أي مقعياو هاين وقتي أي دينتين أيا شيطان كقرنجي كدن بيبو وحيو ددكي جوغيو وحوري نمانكا niman la ilaawan maaha taalooyin u sameeya taalo sawirkoodii sidato oo lagu xusuusto waa la sameeyay dadkaasi qarnigaas taaladaas un bay ku yala daynayeen ilaahay bay caabudayeen qarnigii labaad buu haddana u waxyooday oo wuxuu yiri kuwii idinka horeeyay aabayaashiin iyo ehelkiini bahalahan laftooda ay caabudayeenba shantaa sawir sidii buu markaa shirkigu ku soo bilaabmay barakaysiga waxa dhacda marar fara badan inaga dadkeenu waxa aad aragtaa inay xabaalaha ku warwareegaan qof saalix oo wanaagsan buu ahaa xoolo lagu dulqalayaa waa loo safrayaa waa la tegayaa xabaashiyaaba dadka qaarkood ba ay aaminsan inay wax tar leedahay halkii loo ducayn lahaa ilaahay loo bari lahaa dambi dhaaf iyo naxariis loo weydiin lahaa dadkii maatida ahaa iyo magaratadii iyo juhaashiyadii baabay baryayaan qofka halkan ku jiraaba la barayaa waxa dhacdo kale aynu aragnaa had iyo jeer marka aad tagto baytullah alxaraamka dadka qaarkood oo isku xoqaya gidaarada kacbada oo qaarkood ay tagayaan qaaru xiraa meeshii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga uu ku soo degay waxyigu ama qaaru thawr godkii isagana uu galay nabigu markuu sii baxsanay qayb kamidii waxay isku duugayaan halkan maqaamu ibraahim la yiraahdo ee dhagaxa uu ku jira raadkii nabi ibraahim ee quraaradaaya qaar kamidii halkuu nabigu maray ayay marayaan intaas oo dhan uga ma jeedaan macaalim diiniya meelo markaa ama waxyigu ku soo degay ama naska ku sugan inay soo eegaan ay ka faa'iideystaan ama soo bartaan barakaysi bay uga jeedaan waxa la barakaysan karaa uun sida horeba inuu soo xusnay laba arimood marka la helo shaygan in daliil ku soo aroray goobtan la barakaysanayo sida dhagaxa madow Umar ibn Khattab markii uu dhunkanaya wuxuu lahaa dhagaxow waxaan ogahay inaanad waxna anfici karin waxna cid yeeli karin haddaanan arag nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen taa wuxuu ugu kuurgoynayaa oo cashar rasiinaya Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday dadka hareero jooga iyo qarniga iyo ummadaha soo socda Imam Malik caalimul Madiina
مالك بن أنس ها شيخي مذهبت مالكية قري وحهادي يتشير ودقي جري dadka Madiina yimaada ama waqtiga ay soo xajaan ay soo umreystaan halka safarka ku yimaada marka wuxuu diidi jiray masaajidada iyo meeluhu nabigu maray aathartiisa in la barakaysto waxa oran jiray Uhud iyo meesha Quba la yiraahdo ayuun bay dhacday inuu nabigu soo siyaartay calayhi salaatu wassalaam shuhada Uhud dagaalkii Uhud asxaabtii shahiiday halka ay ku aasan yihiin iyada waa kii nabigu soo booqday calayhi salaatu wassalaam oo soo duceeyay Quba masjid Quba isagana sabtiduu soo booqan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaanu oran jiray laba ragcadood oo lagu tukadaa umray u dhigantaa masjidka marka labadaa wixii aan ahayn iska daayay buu sheekhu oran jiray oo dadka waa uga digi jiray markuu rasuulku sii dhimanayay sallallahu alayhi wasallam umada wuxuu uga dardaarmo uga digay at-tabarruk al-mamnu' barakaysiga qalloocana qaldan isagoo deesiyo ogaa dad badani siyaabaha hadiya jeer ugu lumeen markaas wuxuu lahaa la'ana Allahu al-yahuuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yahuuda iyo nimanka nasaarada la ilaa kristanka Allah nacdalo xabaalihi nabiyadooda ayay masaajidda ka dul dhisteen iyaga oo barakaysanaya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim arinta iyaguna aad bay uga feejignaayeen Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo isagoo socdaala oo safar ku jira oo Madiina ka yimi oo Makka ku soo socda oo asxaabta hogaaminaya ayaa wuxuu arkay meel ay ku yara sunsumayaan asxaabtu waxaasuna ay u dareerayaan halkaas maxay ahayd buu ayuu asxaabta weydiiyay waxay ahayd bay yiraahdeen waa meel uu nabigu ku tukaday oo waa lagu soo tukanaya waxa kale oo arkay waqtiyada kamida sida kutubta siirada iyo taariikhda ku sugan iyadoo dadku ay ku warwareegayaan geedkii Ilaahay Quraanka uu ku sheegay laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جيت كاي لهاي وكجور رمي سورة الفرح وها جيت كي أي هشيس كا أكتيسي هوستيس كلا جلان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سندي اللي صلح الحديبية جيت كاس القرآن كوش جبات ذلك قاركودا يدونان إنه يصابر كيستان فني يكور ورجع يوارك geedka gabigiisa hala jarabu waa la jaray riwaayada Bukhari waxa tilmaamaysaa ibn Umar sidoo warinayo sanadkii dambe waxaanu isku daynay bal inaanu geedkii meeshu ahaa eegno allaba waa naga qariyo waa arkiba weyni intoo dhan waxa muallim ugu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam saahiraba inuu soo sheegay waqtiyada kamida baa wuxuu arkay iyadoo dagaal lagu jiro asxaabto geed la yiraahdo daatu anwaat seefahooda marinaya oo saa ugu xoqaya markaasaa wuxuu yiri maxay ahayd geedkana seeftiya wax ku xoqaysaan ku warwareegaysa nimanka gaalada waa dhir ay barakaystaan oo lagu sii soofaysto hubka ayay leeyihiinoo annaguna kanoo kale ayaa kaasoo kale aanu ka dhiganaynaa ayay yidhaahdeen markaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad buu arrintaa uga xanaaqay oo u diiday waxaanu lahaa waxa aad samaynaysaan sidii reer banu Israa'iil oo kale markii Ilaahay uu ka soo nabadgeliyay Fircoon ayay Nabi Muuse la hadleen oo waxay yidhaahdeen nabi Muuse qoladaasiba ilaah bay leeyina annagana ilaah noo samee marka tiyo kala ha ku dhicina buu leeyay idan arintaasi waxaynu ku baraarujinaynaa dad badan oo ciidan barakada ehelka u hayn ku warwareegaysa aba xabaalaha ku warwareegaysa ama meelaan sharcigu sheegin ku warwareegaya barakaysiga noocaasi waa mamnuuc barakaysiga sugani waxa weeye at-tabarruk bil a'mal in qofka amalkiisa aad barakaysato camalkaasoo looga jeedo sidoo cibaadaystaad kaga dayanaysa sidoo cilmiga u baranayo la fadhiga qofka wanaagsan la saaxiibidiisa ku dayashadiisa intuba waxa ay leedahay barakatul a'maal balaya la barakatul ashkhas baraka xagga shakhsiga ma aha dadka wanaagsan inaad la socoto oo wehelaadu noqoto daliilka sheegay inay baraka leedahay nabigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam qolo meel fadhida oo digriyaya inuu Ilaahay u dambi dhaaf malaa'igtii warbixinta ka soo gudbinaya waxay yiraahdeen hebel ba hadda iskala fadhiya oo isagoo caasi ah wuxuu markaa Ilaahay ugu jawaabay dhaaka qawmun la yakhibu jalisuhum ala macna alhadith kuwaasi waa qolo kala fadhiista aan guul daraysanaynin dadka wanaagsan saalixiinta qofka la fadhiista ma guul daraysanaya ka caasigaana kuwa cibaadaystay ku dara
sidoo kale inay dadka saalixiinta ah ay gurigaaga yimaadaan oo ay ku soo booqdaan oo ay wax ka cunaan oo ay ku duceeyaan wax la barakaysan karo way waa barakatul amal baa la yiraahdaa sidoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu ducaynayay asxaabta markuu casuumad ka cuno akala طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه cilmigii laga baranayay culimada aclaanta ama adiya jeer cilmigooda ku amal fala wax la barakaysanaya way marka barakada noocaas waxa la barakatul amal wal ittibaa qofkii wanaagsanaadu heshato waxna ka faa'iideysato cilmi iyo cibaadana kaga dayato iyo saaxiibtinimo sidaasay tahay oo aynu u baraarujin lahayn khudbadii hore mawduuca aynu kaga soo hadalay laysa biiطlaaq ma mid sidaa u sii daysana lifaaqaasi u baahan yahay waqtiga jahliga uu bato ama jibadiina ay raacdo oo jahliga iyo jibadu markay isku darmaan dadka way jaanjaamiyaan oo waxaan diin ahayn buu qofku diin ka dhigtaa caalamul islaam waa taasriyan ku badan qofkii diintii uu jecel yahay raqbadii abateed buu hayaa waa iska daacad laakiin jahli baa jira jibana way haysaa taasi markaa waxay keenaysaa meelaan baraka lahayn inuu ku duglayo laga furfuri waayo cid xaq uu sheegtana uu rumaysan waayo cid kale oo uu ka sii arkay oo yana hawshaasi haysatay inuu daba galo marka intaasaynu baraarujin lahayn allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبضاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة فريدا عش بفخر في الحياة.